duqbilow haddaad islahayd madaxweynaha waxaad ku taageeraysaa qabiil wallahi inaad qabiil ku taageerinin banaankaas dadka istaagi doontaa rag badanna noo gambanayne banaanka ay u soo bixin xaqiiqatan wallahi inaan la iska yeelin duqbilow haddaad ninka ka ku taageeraysa qabiil Cabdirashiid la dhaho ninka hadduu qaldan yahay waa inaad tiraahdaa waa qaldan tahay qaladna kuma taageera inaad tiraahday ahayd laakiinse waxaad noo sheegaysaa maantay inaad qof qabiil ku hiirinayso hadduu qaldan yahay hadduu saxan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayga qaaliga waqti kasta ee ku tahay wanaagsan oo wacan fadlan haddaad ku cusub tahay oo aad naga daawanayso xagga iyo facebooka fadlan page-kan follow dheh oo like garee siina share garee videogan sidoo kale haddii aad naga daawanayso xagga youtube-ka fadlan videogan hadduu ku soo gaaro si like garee youtube-kana subscribe dheh aad iyo aad dhiirigelin ayay noo tahay inaad nagu xidhnaato caawa ama maantadan waxaan rabnaa inaan ka hadalno xaqiiqooyinka saxda ee jiro number 1 waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ugu horeeyo ninkii duqbilow ahaay afkoo butaacday oo hadlay bas hadalkiisa maxaa ka dambeeyo sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo ninka Kenya dadka ku dilo ku dhibaateeyo Soomaalidina afka ka xiray ayaa rabnaa miiska saaran inaan caawa ka falanqeyno sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo ninkii Daahir Cali soo wahay oo Sharma Boy wixii uu qarinayay banaankana keenay soo dhawo mar kale page-kan haddaad naga daawanayso page-keena saxda fadlan follow dheh sidoo kale like garee video inta ku soo gaaro siina share garee waa ogtahay waxaan nooga baxo waxyaabo badan ayaa nooga baxo inaad like gareyso share gareyso aad iyo aad soo dhawaada mar kale ninkii duqbilow ahaay wuxuu yiri khalad iyo saxba waxaan taageerayaa ninkii Cabdirashiid ahaay gacan ku dhiglaha Kenya ku gamban ayuu maanta taageerayaa wuxuuna ku taageerayaa waxay tahay qabiilna cidna oo nooga gambanaya haba yaraatee ma jirto ninka ileen wuxuu ahaa jiray oo wax ku taageerayo qabiilnimo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuu ka baxsan yahay nin qabiil lagu taageero qabiilna lagu taageerana wuu ka weyn yahay wuxuu haystaa Soomaali weyn oo dhan ayuu isku haystaa duqbilow haddaad islahayd madaxweynaha waxaad ku taageeraysaa qabiil wallahi inaad qabiil ku taageerinin banaankaas dadka istaagi doontaa rag badanna noo gambanayne banaanka ay u soo bixin xaqiiqatan wallahi inaan la iska yeelin duqbilow haddaad ninka ka ku taageeraysa qabiil Cabdirashiid la dhaho ninka hadduu qaldan yahay waa inaad tiraahdaa waa qaldan tahay qaladna kuma taageera inaad tiraahday ahayd laakiinse waxaad noo sheegaysaa maantay inaad qof qabiil ku hiirinayso hadduu qaldan yahay hadduu saxan yahay laakiinse taas ma ahan midaan ku fadhino inta u fadhino inaan ku dhageysan adigoo kaleeta ah afkaaga fiiri dib iskugu laabo weli waqti ayaa haysataa aad dadku wax ugu sheegto wallahi oo billaahi oo tallaahi aana lagu wada joogaynin maanta inta qabiil nin lagu taageero rag badan oo qabiilku wax ku waday maanta waad aragtaan meeshii ay ku sugan yihiin tusaalaha ku noqoto ninkii Daahir Cali soo maanta wuxuu ku jiro xaaladda uu ku jiro tusaalaha ku noqoto duqbilow wallahi dhiiqad la sheegay adaa lagu u galay shalay waxa jaaifeenaysa qabiilo badan maantana sidoo kale waxaad jaaifeenaysaa rag baad u gafaysaa sharaftooda ku ciyaaraysaa xaqiiq wallahi oo billaahi oo tallaahi waxa aawada waxay ahaayeen huf iyo ha iyo wax ma aan waxba ka jirin meesha hawa cilla ah noogu wada hadal dadkii ku dhageysan jiray hawa cilla wax ugu sheegi jirtay nin kastaad caayay jirtana waxaad ku caayay jirtay qabiilka oo yahay farmaajana waxaad ku taageeraysaa xaqiiq wallahi waxay tahay waa qabiil balse aniga waxaan ku taageeraa dadnimadiisa ayaan ku taageeraa qabiilka oo yahay wallahi kuma taageero Soomaalinimo ayaa naga badan balse maanta duqbilow waxaad sheegtay ninkii dadka masaakiinta ahay dilayay dhibaateynayay oo dhibka ku wado wiilka dhalinyarta ahay ee shacabkeena Soomaalidii u soo baxay ee haybadaad aragteen leh ayaa maanta waxa leedahay ninkaas cid wax ka sheegi karta ma lahan balse xaqiiqda waxay tahay waa gacan ku dhiigle wallahi looga daba xari maayo ninkii dadka dhibaatada ku wado waa la soo qaban
godka uu ku jirana wallahi waa loogu daba tagayaa inaadan difaaci karin cabdishiidna difaaci karin waa gacan ku dhiigle waa muhdin waa khaa'in dadka masaakiinta ah dhibaato ku wado adigana waxaa tahay same tin ayaa tahay afkaagana ku sheegtay waxaa tiri ninkii wax ka sheega anigu wax iga sheegay waxa aad tahayna waa la tahay asaga wuxuu yaana waa la tahay runta ayaan kuu sheegaynaa wariyaa sharma boy muxuu haleeyay إيشك محوكها لي دتك الصومالي ده داري على سوي أديك محوكها لي شلي واحد له دون كمقلا يعني جا وأنا كل جي سنة مانتي وأنا كمقلا شلي واحد كوها اللي يسوي هيت نيك داري على سو هل رالي قلي عيال هيت حقيقة والله تاسد كوها اللي يسوي دتك وحبها أوجا جنبن هذا داري كعب سنة صوشك عيد كعب سنة سو أنا كلا والله أنا كعب سنين إن أنا كعب سنين سيدا كلا توحان أنت كشيء جاي ragga ku haya fiidiyowga ka bixi daayir aad wax kaga sheegayso ma bixinayo si kasta aad wax igu soo dirto oo hadal ii sheegto ma ahinin loo caga jugleeyo dadka iga baraaniga cid ii caga jugleekat wax iga qaadi kartane haba yaraatay ma jirto hadda soo hadal badisane ogow wallahi dad inaan meesha ka keeno aan wax ka duuduubo ma jecleen laakiin waa idin keenaya halkaan dadka tusi doonaa xaqiiqda waxay tahay dad badan way ka daboolan yihiin sidoo sharma wax badan u sheegane wallahi oo billahi oo tallahi fiidiyowgas markaa arkay aad ayaan uga naxay daahirow sidoo kale ninkii aad adeegsanaysay lacagta aad siinaysay ee adiga haddaba meeshaad geli lahaydeen raadiya sheekada way soo ilaaday waa soo dhammaatay beenbeentii aad magaalada kula joogtay sidoo kale duqbilow magaalka waxaad ku joogtay waa dhammaatay dhihi laheeda Soomaali anaka ugu badan ama iska day laheeda warkaas waa dhamaaday hadalkaas waa eg yahay waxaadna cadeysay inaad nin qabiil ku taageereysay maanta waxaad difaacaysaa nin gacan ku dhigla ah ummadii dhibaato ku wado ayaa difaacaysaa maanta oo waliba si leedahaba qalad iyo sax waan ku taageerayaa dib iskugu laabin adeer wallahi wali waxaad leedahay gacan qabasho god fiican ayaad ku jirtaa haddaba ka soo laabo taas ayaan ku sheegaa war fiidiyowga waan hadda ku soo gaaro si share gareeya oo gaarsiiya odaygii taraagla ahaay indhaha beelay ha loo sheego xaqiiqda qabiil qofna lagu taageerayo waxa oo yahay cabdishiidne gacan ku dhiglaha oo yahayne waad la tahay duqbilow sidaa tahay asagana wuu yahay adigana waa tahay adigana afkaada ku sheegay cabdishiidna meesha uu joogo waa loogu daba tagayaa qabiil laguma fiirinayo qabiilku oo yahay dad ku leedahay in adeerkayga waay in iskaga daba yeelayso aba yaraatay ma jirto waa gacan ku dhiigle adigana sidoo kale sidamtin ayaa tahay waxa doontuna soobi godka waa la iskaga daba tagayaa war fiidiyowga aan sii share gareeya oo gaarsiiya meelo badan xaqiiqooyinka saxdana waa soo wadnaahay hala sii share gareeya insha Allah